السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله وحلقذين كساب سنعيد برشادة حفظين مقعيدة إلهي سبحانه وتعالى عاوة وحين قاضنا إن مقع كمنا مقعيدة إلهي سبحانه وتعالى مقع نوحيه الله وحين قاضنا إن الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى مقعا وحو كتسينيا كلمة توحيدك كتسينيا مقعا magacan wuxuu ku tusinayaa inuu isaga kaliya ilaah yahay magacan wuxuu ku tusinayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala keligii gaar u leeyahay magacan wuxuu ku tusinayaa cidan ilaahay subxaanahu watacaala inaan looga wixi karin cidan ilaahay subxaanahu watacaala ahayn inaan loogu yeeri karin buu magacan ku tusinaya magacan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankiisa ku sheegay ama uu ku xusay alle subxaanahu watacaala 2602 jeer buu ilaahay subxaanahu watacaala ku xusay 2602 jeer buu magacan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku xusay kitaabkiisa ilaahay subxaanahu watacaala haddana magacan wuxuu ka yeelay magacay u wada laabanayaan magacyada ilaahay subxaanahu watacaala oo dhan magacyada ilaahay subxaanahu watacaala dhammaantood waxaa loo tiirinaya إلهي سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الذي لا إله إلا هو مد كسته وكمل مقعد إلهي سبحانه وتعالى الله إن لقوه مريو وإلهي لقوه مريو إلهي لقوه ريسيو أيام مركها سوغن مقعن إلهي سبحانه وتعالى وحكو الشيء في كتابه العزيز إن كبدا لبكن يا شنجر إلهي سبحانه وتعالى وحلي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم مقعني وحي علماء تماما إنه يهي اسم الله الأعظم مقعني ومقع مركها koobsaday magacyada waaweyn ee ilaahay subxaanahu watacaala mid ka mida wey magacyada ilaahay subxaanahu watacaala ismullahi alacdam magacyada lagu sheego ayuu markaa qeyb ka mida weye magacyada ilaahay subxaanahu watacaala ee alacdam ah buu qeyb ka yahay markaa nabigana sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan inuu maqlay saxaabi ku ducaysanaya ducadan allahuma inii asaluka biannaka laka alxamdu بأن لك الحمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نبي قمر الله لمركو الدعاء كم مغلينك صحابك بوحي والله وحي إلهي أقويا أمي إلهي أكبر يمي عيدي سواوين متكملة magacyadaas oo weliba magacaasoo hadduu ilaahay wax lagu weydiiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala siinaya haddii ilaahay lagu baryana baryada iyo ducada oo ilaahay ajiibayo marka ducadan adigana ku ducayso si ilaahay subxaanahu watacaala baryadaada uu kaaga ajiibo si ilaahay subxaanahu watacaala uu ducadaada u aqbalo si ilaahay subxaanahu watacaala waxa aad weydiisanaysa uu kuu siiyo ducadan ku ducayso اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم دعاء هذا كل دعيسة توحى هبال سيد النبي قبل الشاقي إنه إلهي بريض هذا أقبليه مقع إلهي سبحانه وتعالى باكجراء الأعظم النبي قال كاسوكو قيري صلى الله عليه وسلم مقع نوحو كوبصانيا قروحثة إذا ما استرنانت إلهي سبحانه وتعالى magacani wuxuu ku tusinayaa weynida ilaahay subxaanahu watacaala magacani wuxuu ku tusinayaa ilaahay inuu keligii caalamkan leeyahay magacani wuxuu ku tusinayaa ilaahay subxaanahu watacaala awoodihiisa kala duwan magacani wuxuu ku tusinayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu makhluuqaad leeyahay uu dadka abuuray addoonnimana ilaahay subxaanahu watacaala addoonnimadana inuu isaga leeyahay ilaahnimadana inuu isaga leeyahay ayaa magacan ku xusan magacan ilaahay subxaanahu watacaala ee allah magacyada ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay weye magaca uu ilaahay u doortay inuu magacyadiisa ku bilaabo wey ilaahay wuxuu u doortay magacyadiisa inuu ku bilaabo magaca allah keligii mooyaane cid kalena ma leh falan baro allah ilaahay oo adiga ilaah noo ah ilaahay oo adigaan ku caabudaynaa
ilaahay diinta keliga ayaan kuu qiraynaa. waxaan kaloo kusii darayaa magacani qofka markuu raba inuu islaam noqdo hadduu ka tago islaamnimadiisii sax ma aha. qofka marka uu salaada tukanaya hadduu ka tago allah, salaadiisa ma ansaxmayso, salaadiisa ma xirmayso. allah ereygaadna waa arkaysaa. haddaba allah waxyaabaha u gaarka u yeeshay waxaa ka mid a haddii magacani la gooyo xuruuftiisa qayb ka mid a haddii gooni loo dhigo magacani weli isma bedelayo. ilaahay buu ku tusinaya weynadiisa subxaanahu watacaala. liajli dalika ilaahay sidaa ayuu u doortay inuu magacyadiisii markaa ka mid noqdo. marka ilaahay subxaanahu watacaala waa magaca weyn. magacyada kale marka la jarjara laga yaabaa inay micnahooda isbedelo, laakiin ilaahay u fiirso. allahi markaan alifka ka jarno waxaa soo baxayso lilah. ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku sheegay walilaahi junuudu samaawaati walard. ilaahay ciidanka cir iyo dhulba ciidanka cir iyo dhulba cir iyo dhulba jooga ilaahay isagaa iska leh. haddana marka aan jarno laamka maxaa soo baxaya? lahu baa soo baxaya. ilaahay lahu maqaaliidu samaawaati wal ilaahay furayaasha qaybka cir iyo dhulba ilaahay isagaa haya. haddana marka aan jarno laamka kale ee hu aan kusoo celino huwa allah, ilaahay waa midka alladii laa ilaaha illaa hu, aan ilaah mooyaane cid kalena ilaah keligii mooyaane aan ilaah kala jirin wey. ilaahay subxaanahu watacaala waad arkaysaa magaciisaas qiimaha uu leeyahay, wanaagga uu leeyahay, micnahana isma bedelin. haddaba waxaa ku tusinaya magacani wuxuu ku tusinayaa weynida ilaahay subxaanahu watacaala. magacani waxaad ka dhadhansanaysaa ama aad ka sawiranaysaa weynida ilaahay subxaanahu watacaala. fadlan ka faa'iidayso magacanna ilaahay ku bare, ilaahay baryadaada uu aqbalaya. magacan baro oo xifdi. ilaahay subxaanahu watacaala iimaanka ayuu kuu xoojinaya, iimaanka ayuu ku adkaynaya, qalbigaaga xasilooni ayuu ilaahay ku tuuraya. fadlan ka faa'iidayso, sheergare. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. subscribe gareeya walaaladiin la wadaaga. baaraka allahu fiikum.